السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحير إقرأ النقطة وهركب سنة إن أرين أيا ربا إن أيامهم بيوتيوب كيو ميلا لسلو مريي أرين تسنوح كلامها هو سومالي جلامر أواد برامجكي أهاي برامج كاس إن وحن كلو ربا إنا إذا كقف عليه سيدا وحجران سيدا وحدعان أنا جو ربا إنا أقود مرة فو نلشي ده أنا شخص أهانتي إنا إنير كهذلو horta dadka youtuberada oo dhahayo qaaliladan walaalkii qadarkii fiido maxal live soo galay soo qaadanayo oo waliba si qaldan u isticmaalayo dhahay qaaliladan oo ka carootay ama ka xanaaqday ama yani intay soo libisatay qadarkii gabar kale ayuu ka hadlayaa horta oo fanaan ahayn teeda kaleeto fanaanada sanadka qaaliladan in la siiyo macnaha waa ka xumay inuu dhahay waa run laakiin gabadh oo ka hadlaya aniga ma qaaliladan xagga dhiga magacayga markuu sorry snap ayaa iska duubaya qadarkii gabadha uu leeyahay gabadha soo libisto oo waliba qarashka laga qaatay anigu horta ma aqaano anigana maahan aniguna gabar fanaanad oo sharaf leh oo wanaag leh oo idin jecel oo aad jeceshiina ahay horta gabadha la siiyay fanaanada sanadka kama xumi waa Yurubgeeyo waxay iga horeysa fanka intii la doono waa gabar fanaanada waa gabar iga weyn fanka iga horeyso waa gabar maxaan ku raadaay everything day iga horeyso aan dhigi karo oo respect aan waayo hadii qaadatay hadii iyagu dadka ay sheegayaan sida dadku sheegayaan ay jirto ay wiilashaas ama dadka barnaamijka qabanayay aniga ka cod badan la siiyay xitaa dib uma arko sababtoo ah dadkii codeeyay waa idinka ay codeeyay marka Yurub hadii la siiyay ani hadii la siiyay waa same dadkii codeeyeen uun aniga jacayl ay qaban ayay igu codeeyeen isla jacaylkiinina qalbigiina inuu igu jiraa moogta ma aha wax la siiyo ama koob yar oo la siiyo walaashii marka sorry waxaan dhihi lahaa Yurub hadii qaaday waa fanaandeediga weyn aniga to alifkiyan soo galay fanka sida wada ogtiin 11kii waxa ma aan qaal laakiin to alifkiyan fankiga soo galay so almost 10 years ka hor ama leena mise 7 years ka hor igu horeysa fanka so respect ya wahaya waa fanaanadiga weyn waa fanaanad wax walba iga horeysay waxa la yiri qof kasta oo intuu ka soo horiyo ka cilmi badan yahay marka aniga codkeyga intii jecel way jecesha qalbigii ku hayaan intii codeysay xitaa hadii aniga aan cod ku haystay ama wax dadku say sheegayaan hadii wax ka jiraan xitaa anigu dadkii codeeyay un baa ijo waxaan leeyahay marka aniga waxba kama sheegi karaaninka laakiin dadka youtuberada ee dhahay qaaliladan ayaa intay libisatay maxaan ku raadaayay lixmeeyo lacag laga qaato horta aniga qof fanaanado lacag laga qaatay ma ihi magaceygana Ilaahay baa siiyay intaan haysto Soomaali waxaan malayn marka fanka Soomaaliyeed magacii sharaf ayaa laga wadaagaa laga helaa anigana waxaan aaminsanahay inta jecel waliba in taageerto inaan magac iyo sharaf xagooda aan ka leeyahay insha Allah ana ka yeelo doono Soomaali Maxamed meel walba ku noosha adduunkan koobka sanadka hor maadaama la siiyay sanadkan hadii gabar walaashay qaad dib uma arko hadii dadku iyo codeeyeen oo leeyahay waxba jiro anigu Allah yaclam waxba kamoogi laakiin waxaan rabaa dadka youtuberada ee xumaanta wareejinaya qadarkii gabadha oo ka hadlaya aniga maahan waa gabar aan fanaan ahayn sida aan jeclahay anigu kuleyto moogi laakiin aniga qaaliladan wuxuu maadaama ay gabadha sanadka inay qaaday ahayd marka Yurubgeeyna hadii qaatay dib uma arko hadii gabar kale fanaanada qaadleen dib uma arko المهم dadkii ii doortay maxaa la yiraahdaa ii codeeyay waa joogan weyn sorry snap iskaga duubaya then waxa kale oo jirto aniga sanadkan waxaan aaminsanahay fankeyga inuu sidii hore ka sareeyo sababtoo ah qof aan isleeyahay aan isdhahayna waligeygana aan ku hamin in la yidhaahdo qoftaas ayaad maxaa la yiraahdaa isku yiri cod dhowdin ama aad noo bedeshay magool waxa way boqorada codka waa ahayd Allah u naxariisto anigu boqorada codka kama dhigin shakhsi kama dhigin hobladu waa bari kama dhigin ee shacabka ayaa ka dhigay iyo waliba maxaa malaynayaa wadanka la Suudaan ama malaynayaa so waxaan aaminsanahay qof aanan gaarin ayaa la gaarsiiyay oo la dhawaad gaarta anigu waa ogahay inaanan gaari karin laakiin qof walba Ilaahay hibo wuxuu u siiyay codkiisa anigana intii Ilaahay siiyay alxamdulillah kuma aanan macnaha dadka jecelna ma dhahayo fanaanimo kaliya igu jecelin shakhsi ahaan ayay dadku badan ay jecelyihiin sidaan ogaaday oo qof walba shakhsi ahaanteeda iyo jecel yahay
marka ani waxaan kusoo gabagabeynayaa dadka youtuberada ee waxa lasoo ardayo wax la kala ardayo ma aha walaalkii Suldaan Seeraar wuxuu noqday fanaanka sanadka walaashayda Yurub Geenya waxay noqotay fanaanada sanadka ayadoon qof shaqsiya ama dhowr qofood isku imaada aysan dhihin ayaa ummadda Soomaaliyeed ay u tahay ma fahantay anigana sidoo kale ummadda Soomaaliyeed ayaan u ahay fanaanada sanadka anigaana isku qirsanba inaan ahay fanaanada sanadka sababtoo ah ma ahan inaad fanaanada sanadka ku noqotid heesa soo saartid ma ahan inaad ku noqotid fanaanada sanadka video ah sameysay laakiin fanaanada sanadka waxaa lagu noqdaa dadka jacaylkay ku qabaan shakhsi ahaan hadii lagu jecel yahay hadii fanaannimo lagu jecel yahay hadii lagu jecel yahay wax kaleeto marka ani waxa idin sheegayaa fanaanada sanadka xaqiina ayaan ka ahay kimi iyo fanaan kale xaqiisa kimi iyo hal qof kaligiis kimi iyo dhowr qofood isku tagay waxaan u ahay Soomaali oo dhan ayaan fanaanada sanadka u ahay waan idin ahaan doonaa marka waxaan ku riyaa xaaladdu halkaas ay maraysaa dadka youtuberada ee waxaan leeyahay ee xumaanta wali kuwa qaar runtii ka hadlayaan in dadka jeclaan in la siina adinka ay siisan marka muhiimadu ma ahan in la isgodoonsiyo koob adduunka ilaa maalin inaan gaarnaan jeclaalahay waliba koob lacag badanna la siiyo koobkan hadda macnaha wuxuu yahay waa iska howl bilaaw waa adiga dee weli ma isa dhicin mogta fanaaniinteen hore xitaa bilado yacni sida adduunka oo kaleeto la qaybiyo oo awaad laysku siiyo saan oo kale maysan jirin sidaan si ka fiican insha Allah waan rajeynaynaa iyada oo nala siinayo koobab oo dee qaaliya waxa step to step waa gaari doonaa insha Allah taala marka waxaan leeyahay taageerayaashayda iyo codeeyay iyo intaan iyo codeyninbo intaba big respect yani haya waa miskiinta in Axmed dheedo rashadaha la joojiray tan kaleeto qadarkeeyo aad baan kuugu mahad celinayaa walaalkayga maadaama ay la jecleed fanaanada sanadka waanan ku ahay adigana waxaad ii tahay fanaanka sanadka waxaa tahay maahan waxaad ii tahay boqorka sanadka sababtoo ah ani waxaan aaminsanahay qadarkeeyo ninka de salmaaqan iyo maartay naga bareejeela wallahi oblah ina been idin sheegaynin fanaan kasta cod waxa waayo dadka dhan waxa waayo cod qofba ilaahay buu siiyo cod gooni qof kastaaba maanta aniga qof aan ku cod ahay ma jirto يعني dad shabaha way jiraan codadkooda laakiin qof kasta cod iyo siiqad gooni u leeyahay laakiin qadarkeeyo ani waxaan aaminsanahay fanaantiisa Soomaaliyeed wuxuu kaga bedelan yahay dhanka labiska wallahi inaan been idin sheegayn dhanka labiska waxaan aaminsanahay fanaanka kuwaad in la siilahay aniga say ila tahay adinkana de waa ogtiin style iyo marka ugu dambeys reer YouTube inta dhibka wada khaska wada dadka isku direyso ama xumaanta faafinaysa iska daaya waxa fiican oo naga qosol sii keenaya qayo ana qosolka jeclay inaas ka qoslee xitaa daaxan aqsana marka qaar guriga joogo ama adib dareemo maraayadida hor istaaga cilbila mishi darja aw teen habiyo noqda ani waxaan jeclahay inaan hada dhibaataysanahay in iska farxo farxada waa muhiim in kasto farxada Ilaahay oo siiyo qofka bilaadanka hadana waa la kala samir badan yahay anyway ani YouTube-dadan jeclahay inaan daawado official YouTube-ka Ajax official YouTube-yada aan ka helo wiilkan kale farxad sidee waa qof oo maarta faan uga hadlo reaction ku bixinayo kale waa ka helaa YouTube badan aan ka helo waa jirta aan daawado markan anagana naga daa ciyaarta yaa qeebo